aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Mahad Cumar Xaaji waxaan maanta halkaan u imid inaan u hadlo dhibane Dr. Cabdullaahi Xaashi Cali ahana Director Generaalhi ama agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka oo hadda xiran muddo dhowr isbuuc ilaa 6 isbuuc 7 isbuuc maraysa la xiray bishii afraad 6deedii markii la xiray horta waraaq waran oo lagu soo xiray ma jirto waa la soo xiray waxa la geeyay xafiis lagu wareysto wax waarana looma hayn eedayna looma hayn maalinkaas markii la xiray oo maalinkaas xidhnaa habeenkeedii baa loo keenay waraaq oranaysa in maxkamadda gobolku ay soo xirtay waxaan kugu eedeynay bay leeyihiin musuq maasuq eedeyn musuq maasuq dhacay oo aan markii horeba la soo baarin waxa dalka caado ka ahaan jirtay ama adduunka caado ka qofka lagu soo eedeynayo corruption ka ama noocaas oo kala ah in marka hore la soo baaray xafiiska maamulka lacagta iyo xafiisyada loo dan leeyahay in la xiro in ayagoo jooga la baaro guryahoodan ay ku xirnaadaan ilaa amar dambe ay guryahooda joogaan kadib haddii la soo eedii ay soo cadaato in la hor keeno maxkamadda eedeynta oo dhan laakiin marka hore in la xiro haddana la dhaho waa soo baaraynaa xogaa maartay arrintaasu cadaaladda waa ka fogta waxaa la oran jiray markii South Africa apartheidka uu jiri jiray waxaa lagu siiyay dadkii apartheid askartii waxa amar lagu siiyay kill them first and then investigate marka hore dila kadib baara marka arinta hadda waxay u egtaa in marka hore la kharijiyo ama macnawiin loo kharijiyo ama qof aan ba la kharijiyo dabadeedna in la baaro marka wax macnaheedu taas keenayso ma arko yani hadda waxaan arkaa inuu ninkii iska dambiilay yahay isna proven ma la cadeynin guilty waaye marka inaan hadda aqoonsano ama aan fahmo in cadli dhici karo waa igu adagta problem korbu ka socda meel laga socda ma garanayno wax soo xirtay ma aqaano sababta hadda loo xiray ma garan karno yaan la aadnaa ma garan karno waxaan rabaa inaan la wadaago inaan ka hadlo inaan ummadda iyo bulshada Soomaaliyeed la wadaago cabashadayda aan cabanayno anigoo u hadlaya familka uu ka dhashay oo dhan kamida ugu cabanayna bulshada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed darajooyinka kala duwan leh ilaa iyo dawladda iyo golayaasheeda kala duwan ama ha ahaadaan golaha shacabka ama golaha odayaasha ilaa iyo madaxda sare ee dalka waxaan rabaa inaan la wadaago wixii aan kala kulmay intii la xiray iyo marxaladihii ay martay arintaas marka hore waxaan raalgelin ka muujinayaa inaanan marka hore dadka Soomaali ku baraarujin ama aanan ku wacyigelin arinta maanta maxaa yeelay waxaan siinayay fursad waxaan siinayay maxkamadda waxaan siinayay in cadaaladdu bal dhinac u dhacdo wax laga jawaabi karo dood laga furan karo ay noqoto ilaa ay soo istaagtay in garsoorkii cadaaladii maxkamaddii ay nagu adkaatay jawaabihii aan rabnay si waafiya noolaga shaafin waayay go'aankii la gaarana laga noqonayo waxa markii bishii 6 ahayd la xiray 8 bisha maxkamad la geeyay 7 bari bay ku darsadeen qoladii eedeynta soo jeedinaysay haddana waxay dhaheen 7 kale ilaa 3 jeer bay 7 ku darsadeen markii afraad markay maxkamadda keeneen waxay keensadeen jeeg bay keensadeen aan lahayn document support ama jeeg marka la saxayo wuxuu leeyahay dokumentiyo soo maray marxalado kala duwan oo lagu saxay maxaa jeega loo saxay waxa loo bixinay saas wuxuu ka soo baxay meeshaas wuxuu maray halkaas yaani darajooyin buu soo maray sadarteed yaani wixii document supporting ama wixii caawinayay jeega sababta loo bixiyay ma aysan sheegin jeegi waa la yiri waa kugu xirnay Roomaan ahaan noogu xirnaada hal loo gudbiyo xabsiga dhexe iyadoo la og yahay xaaladda xasaasiga ee lagu jiro waxa isla markaas aan codsanay asaga
Dr. General Cabdullaahi Xaashi iyo laba kale oo howladeena in caafimaad baarid COVID-19 in la baaro coronavirus laga baaro waa la ogolaaday waa la saxay waxa kale oo nala ogolaaday inay meesha ku xirnaadaan bacdama arinta xaaladda caafimaad ee dalku xasaas yahay xabsiga dhaxana aan loo gudbin karin inay ku xirnaadaan stationka ay hadda joogaan ama xabsiga booliiska ay hadda ku jiraan aan meel kale loo gudbin maalinkii ku xigtay go'aanka wuxuu soo gaaray in garsoorkii loo dhamaa dadku audience-kii iyo dadkii daawanayay iyo kuwii dhageysanayay meesha ay joogeen ay dhacday in la yiraahdo waa laga noqday go'aankii garsoorkii ka dhacay maxkamadda laba loo ogolaaday howlwadeennada aha Cabdullaahina waa la diiday taa iyada waxaan u qaadanay arin si gaar ah iyo oo takoor gaar ah inay noqotay baan istusnay xayeelay madax bay wada yihiin nimankii dawladda wada shaqeynayay shaqaale dawladeed waay sharciguna dadka waa u sameeyay ninka soo eedeeyay ama xeer ilaalinta soo eedeysay Director General agaasimaha guud ee wasaaradda iyo asagu waa u sameeyeen sharciga kan la eedeeyay iyo kan wax soo eedeeyay waa u sameeyeen waa ka doodayaan in sharciga sax yahay in kale laakiin in sharcigu sareeyo in qaanuunku sareeyo ayaa waajib ku yahay markaan taa ka gudbo waa loo diiday waan cadaadinay waan la hadalnay waa sheegnay in arintaana arin cunsuriyad ay ku jirto ay tahay qaarna la ogolaado sharcigu uusan ogoleyn arinta ayada sida particularmentiga loo raadsanayo ama sida khaaska ay loo asaga loo target gareyn loo ugaarsanayo asaga waxay ogolaadeen in loo geeyo COVID-19 kii laga soo baaro waa la soo baaray waxa la soo sheegay positive inuu yahay inta kadib waxaan sii codsanay waraaq caafimaad oo korkiisa xasaasiyad ay ka buuxdo marka hore uu jirna oo u baahan 24 hours baxnaanin inuu qabaysto inuu meel kaligiis ku jiro intaas ay tahay waxa la wadaajiyay COVID-19 wuxuu ugu dhacay dad qabay baa la xiray waa la diiday dhakhtarkii waraaqda uu soo qoray waa la diiday inta markay marayso marka bacdama uu ninkii hadda bilow yahay COVID-19 kii bilow uu ku yahay waxaan rabnaa inaan baxnaanino wax naga codsada wixii loo baahan yahay inaan dhigno baasaboorkeena inaan dhigno hantideena gaarka aan leenahay ee ma guurtada waa ay diideen waxay codsadeen 150,000 oo cash oo dollar anu arintaas lacag aan meelan ka heli karno oo hadda aan raise gareyn karno oo fan inta aan raise gareyno dhowr bilood loo sugo arin dheer bay noqotay waan ka cabanay waan abiil baan ka qaadanay waa la doodnay dood dheer kadib waxay soo istaageen inaan bixino nus boqolkiiba taasoo noqonaysa 75,000 oo dollar inta ayada markay sii dhaaftay waxaan anagu 75,000 oo dollar dhismo ka weyn oo ka qaalisan oo aniga ahaan magacayga ku qoran oo aan dhigi karo oo aad haysan kartaan baa jira oo adinka free ah qof igu haysta male waa sharciyeysan yahay sharcigeeda waa haystaan kulli in la idin dhiibo ma rabno cash kaliya rabno marka arintu ma aha in anigu hadda ma aamini karno inay arintu tahay lacag iyo cash inay tahay arintu marka in arin adinka adag way arinta waxaan ka nimid dowladda dheer in dibkan naga soo gaaray iyo waxaan naga soo gaarana uma aynan imaanin waxaan u nimid cadaalad iyo garsoor dalka sidiisa inaan helo inta markaan ka gudbo waxaan ka codsanayaa hay-adaha u qaabilsan cadaaladda dalka garsoorka dalka waa qaabilsan inay arintan gadaal loo eego ninkan hadda waa xanuunsan yahay COVID-19 way waana qandhaysan yahay hadda waa jiray waxa arintan inuu qandhoodo ama jirado keenay rabbigay laakiin waxaan annaga u haysanaa inay arintan keentay dadkii lala dejiyay COVID-19 ee qabay dadkii lala dejiyay ay isla degeen inay ku daarteen sadarteed haday wax gaaraan oo gaarid caafimaadkiisa iyo jirahaantiisa ay wax gaaraan mas'uuliyadeeda waxa qaadaya hay-adii soo xirtay ama soo geysay meesha ayaa mas'uuliyadeeda qaadaysa
waxaan ka codsanaynaa cadaaladda dalka iyo mas'uuliyiinta dalka xildhibaanadii aan soo doornay Soomaaliyeed in cadliga halkan laga galay ama tacadiga lagu suubiyay doctorka dhakhtar ah waliba cudurka hadda maanta jira contagioska ee faafa ee safmareenka ah nin ku takhasusay ah in ilaa heerkaas ficil ah lala gaaro oo asaga target uu ka noqdo intii kale oo la xirnayd oo asagu noqdo intii kale markii ay jiradeen covid-19 laga helay na la sii daayo ayadoon wax damaanad ah laga qaadin in asaga damaanad lagu xiro annagoo diyaar u ah damaanad kastoo aan bixin lahaynba la diiday